magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa agab waxbarasho soo gaarsiiyay iskoolka ka Primary ee magaalada Balad Xaawo waxaana goobjoog ahaa maamulka gobolka kan degmada iyo xildhibaan Cabdifataax Nuur Mataano kamid ah baarlamaanka Soomaaliya ugu horreyn waxaa madasha ka hadlay Deeq Maxamed Cabdi oo ah gudoomiyaha jaaliyadda midnimo ee bariga bartamaha Afrika anigoo ah gudoomiyaha jaaliyadda bariga bartamaha Afrika xarunteeda ta magaalada Nairobi jaaliyadaas ku midaysan dhammaan jaaliyadaha ka soo jeeda gobolka Gado gaar ahaan degmada Balad Xaawo waxaan agab waxbarasho oo arkaysaan oo qaybaan kala duwan ah aan soo gaarsiinay iskuulka ka Primary School ee degmada Balad Xaawo waxa sharaf weyn inoo amaanta inay nagala soo qayb galaan kulankanaga dhammaan xubnihii ugu sareeyo maamulka Jubbaland heer federaal iyo heer gobolba ugaasadii degmada gobolka Gado nabadoonintii xildhibaanadii dhammaan maamulkii iskuulkii iyo ardaydii iyo hooyooyinkii dhammaan dal walba dadkiisa dhiso runtii markuu ugu horeyso aan u mahadnaqay araggii iska xil saaray runtii arintan oo jaaliyadda ahaa oo maaragtay jeebkoodina gacanta geliyay arintan sameeyay dhiirigelin waayay wax qabad waayay wax tus waayay aad baan ugu mahad celinayaa waxa kale oo sheegay kuwa iyaga la midkoo jaaliyadaha ah markaad fiiriso gobolada kale dalka waxa wax dhisay jaaliyadaha waay dadka dalka qof walba degmadu ka soo jeeda iyo gobolku ka soo jeeda isaga dhistay laakiin waxbarashada iyo taariikhda waxbarashada inaan ka harno ma rabno barasaabka xigeenka gobolka iyo guddigiisa xubnaha maamulka degmada Balad Xaawo macallimiinta iyo maamulayaasha iskuulka ka Primary School odayaasha dhaqanka ee degmada Balad Xaawo iyo guud ahaan ciidamada iyo miidiyahaba والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سلام كدي waxaan rabaa inaan u mahad celiyo runtii jaaliyadda soo gaarsiisay ka Primary School agabkan waxbarasho runtii aan aad ugu faraxay runtii waxa weey waa bilow aad u fiican bismillaah alxamdulillaah wa kafa wa sallallahu wa sallam ala sayidina mawlana Muhammad horta waa salaamahayaa xildhibaanka federaalka nagala joogo xildhibaan Cabdifataax iyo xubnaha gobolka kuwa degmada odayaasha dhaqanka waxaan si gaar ah ugu mahad celinayaa jaaliyadda isku xilqaantay inay maanta na soo